بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين waxaanu bilaabi doonaa barnaamijkeennii aynu rabadaanta ugu talagalnay magaciisu waxaa sooyaalkii asxaabtii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maanta waxaynu qaadan doonaa asxaabiga koowaad magaciisu waa Anas ibn Malik. Anas ibn Malik wuxuu ka mid ahaa asxaabtii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kuwii ugu da'da yaraa iyaga oo yar nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u yimid diinta iyo markaa waxyiga ka qaatay wax ka bartay. Anas wuxuu ku dhashay oo ku barbaaray magaalada Madiina wuxuu la noolaa hooyadii Qumaysa Allah ka raali noqday iyada oo markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu inankeedu arag ayay uga sheekaysay markaa Anas ibn Malikna jacayl iyo muxabba ayuu qaaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo arag nebi maxamed wuxuu ku sugnaa markaa waqtigaasi magaalada Makka Anasna wuu jeclaaday markaa jacayl ayuu qaaday. nebi calayhi salaatu wasalaam uu soo hijrooday magaalada Madiina ayuu yimid. Anas wuxuu ka mid ahaa dadkii soo dhaweeyay magaalada waliba carruurtii yaryar ee magaalada koornaha kaga hor tagtay walow la sheego markaa inuu markaa maalintii koowaad oo kale una arag oo markaa maadaama carruur ahaa ayna suurtagal markaa inuu arko oo hungugo kale markaa lagu sheego maadaama uu jacayl u qabay oo doonay inuu arko balse markaa una arkay. markii la soo dhaweeyay carruur iyo roolaba reer Madiina way soo dhaweeyeen watii asxaabta qaar kood oran jiray Ansaar kuwii markaa Madiina ku soo dhaweeyay kuwii ka yimid magaalada Makka oo ugu horeeyay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saaxiibkii Abu Bakr. markii magaalada yimid hooyadii Qumaysa ayaa markaa ugu tagtay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam magaalada Madiina deedna markaa waxay ku tiri cid kasta nebi maxamed uu soo dhaweysay waxbay ku keentay anigu inaan kayga Anas ayaan ku keenayay hooha ku khidmeeyay. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu soo dhaweeyay madaxa ayuu markaa saa uga salaaxay Anas ibn Malik oo carruur markaa una ka gudoomay waqtiga laga bilaabay isagoo 10 jir Anas halkaas ayuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam khidmeentiisa iyo shaqayntiisa iyo diinta ka barto oo kaga beeray diinta ayuu ka baranayay siiradiisii ayuu markaa ficil iyo qowl ba kaga qaadanayay. muddadii dambe nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu la noolaa Anas oo markaa waqtigaasi halkaasi uu kula joogay. Anas ibn Malik dhaqankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay wuxuu qof akhlaaq wanaagsan qof dhaqan leh qof wuxuu markaa si wanaagsan dadka ula dhaqma. Anas ibn Malik wuxuu ka warramay markaa qiso dhex martay isagii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu maalmaha kamida ayuu meel ii diray inaan wax markaa uga soo waxeeyo ama uga soo qabto. deedna wuxuu markaa ilma dhaqan buu ahay markaa carruurtu markay yar yihiin markaa 12 yihiin waa kuwa jecel markaa ciyaarta iyo boodboodka iyo markaa waxyaabaha la midka. marka Anas wuxuu yiri aniga meesha ku soo socdaan arkay carruurtii markaa ku leexday deedna markaan ku leexday carruurtii la ciyaaray sidaan la ciyaaray ayuu markaa ciyaartii dhamaatay markii dhamaatay baan kacay deedna waxaan arkay buu yiri nin daba taagan oo gadaashiida taagan markaan sidaa u eegayna waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. markaasuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku yiri Anas waxaan ku daray soo qabatay markaasuu yiri markaa may imakan soo qabanaya markaa nebi calayhi salaatu wasalaam lama diririn ma huruufin ma haraamin laakiin wuxuu yiri soo qabo orod bas sidoo markaa ka qaxray. Anas wuxuu sheegay markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu qofka akhlaaqda wanaagsan waa maadaama uu 10 jir ugu yimid 10 sano dambana uu la yimid. Anas wuxuu xusay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidoo markaa xasuustiisa uga bixiyay wixii laba maalmood ma ilaawo buuri maalintii la keenay hooyaday ii keentay iyo maalintii uu dhintay labada maalmood mid markaan xasuusto waan farxaa oo mataqaanay markaa farxad bay gasha midna markaan xasuusto waan ooyaa buuri maalinta farxaa waa maalintii la keenay gurigiisa animaday markaa aan u bilaabay in diinta iyo waxyaabaha la midka aan ka barto. maalinta kale oo yaano waa maalintii uu dhintay isagoo markaa meeyda aan wajigiisa ka qaaday maradii iyo kafankii buuri marka labada maalmoodba uu xasuustaa. Anas ibn Malik nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa u duceeyay nebi maxamed ducadiisii waxaa ka mid ahayd Allahumma arzuqhu maalan wa waladan mubarak lahu ilaahay ku arsaaq carruur iyo xoolo una barakee. Anas waxa lagu sheegaa inuu carruur fara badan yeeshay oo mataqaanay markaa tafiirtiisii ay markaa qarniyo fara badan sii jirtay carruur badan markaa uu ka tagay xoolo fara badan buu yeeshay markaa waqtigii dambe markaasi in xoolo leh ayuu noqday. da'dan waxa la sheegaa 100 inuu gaaray markaa asxaabta kuwii ugu dambeeyay ugu hor dhintay ayuu kamid ahaa. Ilaahay subhanahu wa ta'ala u barakeeyay ducadaana uu aqbalay.
Anas ibn Malik nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam nolol qurux badan ay soo wada qaateen waqti fara badanna way wada noolaayeen maalintii uu Anas dhimanayay markaa uu dardaarmay oo wuxuu yiri laa ilaaha illa muhammad rasuulullah la ilaa qiro markaan dhintana nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam agtiisa lagu aaso dardaarkiisa sidii baa loogu furiyay oo loo yeelay Anas wuxuu kamid ahaa saddexda asxaabi ee ugu xadiiska badan ama nabiga ugu dhawaa ama la sheego inay asxaabta mataqaanay markaa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ku ugu dhow best friendskiis yani ku ugu dhow inay haayeen waliba iyagoo yar waqti yar u yimid asxaabta waxa kamid ah Abu Hurayra iyo waxa ka horeeya Abdullah ibn Umar labada asxaabi ee qaaliga ayaa ka horeeya iyaguna mataqaanay xadiis fara badan bay soo wariyeen waana asxaabta ugu xadiisay badan nabi alayhi salaatu wasalaam dhaxalkiisii wixii marka Anas bin Malik xadiis fara badan buu wariyay xadiis inta badan dhaqanka ka hadasha iyo nabiga alayhi salaatu wasalaam waxyaabay gurigiisa ku sameyn jiray inta badan isaga iyo wax wariyay marka xaasaskii nabiga alayhi salaatu wasalaam Anas bin Malik maadaama uu isagoo naqan u yimiday muddo 10 sano uu la noolaa dhaqan fara badan iyo waxyaabo fara badan nabiga alayhi salaatu wasalaam ku ogsoon yahay Anas bin Malik wuxuu ahaa asxaabi taariikhdiisa aynaan ka gayoon karin waxaan ku soo koobaya marka Anas bin Malik nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam dhaxalka uu ka tagay aynu maanta inoo naxaysanaa aynu akhrisanaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam dhaxalkiisii kuwa qaata ilaahay subhanahu wa ta'ala ha inaga dhigo dhamaantii waad mahadsantihiin barnaamijku noo sii socon doona intaan xalqad tan kamida ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaantiin Ramadan mubaarak